إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات. walaalyaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadoo dhan iska leh. allah inoogu nicmeeyey nicamka aynu haysanno haddaynu dadka muslimiinta nahay meel kastoo aynu joogno. allah subxaanahu wa tacaala nicamka aynu haysanno dhammaantood isaga xaggiisaynu ka helay. nicmooyinkaasi waxaa ka koowa uguna weyn uguna qiimaha badan nicmada islaamnimada. waa nicmo aad iyo aad u qaaliya. allah inoogu deeqay ayaa inooga warramay inay tahay nicmo. alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina. maanta ayaan diintiinni idiin dhammaystiray baa rabbi tabaaraka wa tacaala. waa maalinta aayadani soo degtay. nicmadaydii baan dushiinna ku taam yeelay. waa nicmada islaamnimada. islaamnimaan raalli idinkala noqday baa rabbi tabaaraka wa tacaala. waa nicmo, waa gallada ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa aynu ka helnay. ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala inagu soo simay bishii ramadaan ee qiimaha badnayd, bishii aynu sugaynay ee aynu tirsanaynay. bisha ramadaan waa fursad qaali ah oo qofka muslimkee soo gaadhaa ay tahay inuu ka faa'iidaysto. waxyaabaha muhimka ah ee ay tahay bisha ramadaan in looga faa'iidaystana waxaa ka mid ah, maadaama ay tahay bishani bil ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa in badan oo ka mida u dembi dhaafo, inaynu ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keenno. rabbi subxaanahu wa tacaala gafafkii aynu ka gallay aynu waxa weeye ka soo noqonno, aynu ku maydhno toobad iyo camal wanaagsan aynu ku maydhno. allana subxaana wa tacaala waxau idhi qur'aanka kariimka ah, wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah min qabli an yaatiyakum alcadaabu uma laa tunsaruun. ii soo noqda ayaa alla yidhi tabaaraka wa tacaala, ii hoggaamsama oo toosnaada inta aan midkiin cadaabku aanu ku iman, dabeedna aanu waayin cid markaa waxa weeyaan u hiilisa. allah tabaaraka wa tacaala mar kale waxau idhi, wa huwa aladii yaqbalu atawbata can cibaadihi wayacfu can asayi'aat wayaclamu maa tafcaluun. rabbi subxaanahu wa tacaala waa ilaaha addoommaha ka cafiya, ilaaha addoommaha cafiya ee gafka iyo markaa dunuubtana ka dhaafa. waxaad samaynaysaana waan ogahay baa rabbi tabaaraka wa tacaala. mar kale ilaahay subxaana wa tacaala waxau idhi, afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruunah. ilaahay miyaanay u soo noqonayn, miyaanay rabbi tabaaraka wa tacaala u toobad keenaynin. idan waxaynala gudboon markaa walaalayaal fursaddaa inaynu ka faa'iidaysanno, inaynu ilaahay subxaana wa tacaala aynu u soo noqonno. qofku inuu quusto maaha. hadduu dembi badan qofku galay inuu quusto oo naxariista ilaahay subxaana wa tacaala ka quusta maaha. qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica innahu huwa algafuuru araxiim. allah tabaaraka wa tacaala farriintan qaaliga ah ee qiimaha badan ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoogu soo dhiibay. waxaad ku tidhaa nebi maxamedow, addoommahayga naftooda ku xadgudbayow, laa taqnatuu min raxmat illaah, ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina. qofku markuu gaf la yimaado ee macsiyo iyo dembi uu la yimaado, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxama yeelin, naftiisu wax yeelay. hadduu wanaag iyo xasano sameeyana ilahay waxba uma tarin. addoommaha naftooda ku xadgudbayow, ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina
الله سبحانه وتعالى وإله دمبي dhaafkiisa naxariistiisuba ay badan tahay qofka muslimka waxa la gudboon laba arrimood inuu iska ilaaliyo quusta inuu iska ilaaliyo isdhigashadana inuu iska ilaaliyo isagoo dunuub oo dhan sameynaya isagoo toobad keeneen isagoo amal wanaagsan aan sameeyeen haddana inuu qadaadka u seexdo oo uu dhaahdo maxay sida maanta dad badan oo markaa Soomaalida ay sameeyaan in allaha ghafuurur rahiim ilaahay dambigu dhaafa waa run laakiin waxaad ogaataa waana ghafuurur rahiim oo dambigiisa naxariistiisa dambi dhaafkiisa naxariistiisa way badan tahay cadaabka allana waa daraya nabbi cibaadi anni ana al-ghafuurur rahiim wa anna cadaabi huwa al-cadaab al-aliim suuratul hijr waa ilaahay ku wada sheegay labada aayado waxaad u sheegtaa adoomahayga naxariistiisa dambi dhaafkaygu inuu badan yahay cadaabkaygu inuu daran yahay walaalayaal qofku inuu quusto maaha dambiga waa inaynu ka soo noqonnaa dhammaan waa wada gafaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala xadiid alqudsi waxa uu ku yidhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam rabbi tabaaraka wa tacaala ku ka wariyey rasuulkana calayhi salaatu wasalaam saxaabiga lala abaadar alghifaari uu ka wariyey oo muslim saxiixiisa ku jira yaa cibaadii inakum tukhti'uuna billeyli waannahaar wa ana aghfiru dunuuba jamiica fastaghfiruunii aghfiru lakum addoommahaygiiyow hadh iyo habeenba waa gafaysaan aniguna dunuubtaan dhaafaabaa rabbi tabaaraka wa tacaala dambi dhaaf weydiista aan dambiga idinka dhaafe ilaahay baa dunuubta dhaafa cid kaloo dhaaftaa ma jirto rusushu ma dhaafto ambiyadu ma dhaafto abaaliistu ma dhaafto malaa'igtu ma dhaafto awliyadu ma dhaafto jinku ma dhaafo qisiisiintu ma dhaafaan kuwa maanta gaalada dadka maanta gaalada mushkiladaha haysta waxa weeyaan kaniisad buu tegayaa lacag buu shubayaa kii kaniisadda joogay ee boobka ahaa ama qisiiskii baa ku odhanaya anigaa dembiga kaa dhaafaya lacagta intaa leeg la kaalay juwan yarna wuu u jarayaa sukuukul qufraan markaasuu leeyahay juwan kaa qaado dembigii baan kaa dhaafay dembiga yaa dhaafa ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa dhaafa waman yakfiru dunuuba ila allah cid kaloo dembiga dhaaftaana ma jirto alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay markaa waa gafaysaan hadh iyo habeenba waad gafaysaan aniguna dunuubtaan dhaafaaye dembi dhaaf weydiista walaalayaal waa inaynu ilaahay soo noqonnaa ilaahay dembi dhaaf weydiisanna toobaddu shuruuday leedahay way culimmadu ka warramaan qur'aanka iyo sunnada marka ay ka soo dheegteen kow waxa ka ah qofku inuu dembigii faraha ka qaado inuu ka dhex baxo haddii waajibu dayacay ay tahay waajibkii waa inuu la yimaado maalan waaba taariku salaaddii buu ka tegey ama waa ruux dumaroo xijaabkii lumisay oo xijaabkeedii iyo asturkii ilaahay subxaana wa tacaala ku addoonsaday ka tagtay calaa markaa tusaalaha macnaha waxa weeyaan qofku waajib buu ka tegey waajibkuu ka tegey buu la imanaya ama xumaan buu samaynaya xumaantii waa inuu faraha ka qaada bannaanka waa inuu uga baxa laakiin isagoo xumaantii samaynaya ii soo duceeya astaghfirullah tawbatulkaadibiin weeye waa istighfaarsanaya haddana xumaantiiba ku jira shuruudaha toobadda waxaa ka mid a qofku inuu go'aansado dembiguu samayn jiray dib dambaysa inaanu ugu noqon hadduu ka dhex baxay inuu go'aansado inaanu dib dambaysa ka noqon bishii ramadaan baa soo gashay xumaantii baan iska daayay laakiin ma ramadaan unbaa daysay mise waad ka go'day oo waxaa go'aan kuu ah inaanad ku noqonin in ramadaan markay baxdana dad badan caado ayay noqotayba sii soco iyo soo soco ramadaan buu salaaddii bilaabay xumaantii buu joojiyey masaajidadii baa lagu arkay daacadii buu la yimid ramadaan markay baxday kiiba ma moodmidba halkiiba haddana ka misay inuu qofku go'aansado dib dambayse xumaantu samayn jiray inaanu ugu noqonin inuu ka murugoodo oo qofka mu'minka ah dembigiisa waa ka murugoonaya waa culays dushiisa saaran haddaan ilaahay subxaana wa tacaala ka dhaafin cabdillaahi ibn mascuudna waa kii lahaa ina almu'min yaraa dunuubahu kaannahu fii asli jabal yakhaafu an yaqac calayh waina alfaajira yaraa dunuubahu kadubaabin waqaca calaa anfihi fayaquulu haakada fataar qofka mu'minkaa dembigiisaa ka culus dembigiisaa la weyn dembigiisa wuxuu arkayaa buur dushiisa inuu buur hoosteed fadhido buur hoosteed inuu fadhiyo oo uu ka cabsi qabo buurtaasi inay ku soo dunto ku soo shalwato waa cabsanayaa waa baalladaymoonaya dareenkiisu waa kacsan yahay dembigii ma lagaa dhaafay ma ku xisaabtamaya mise waa kugu qoran yahay waa lagugu qaadaya laakiin faajirka qofka dembiga la qabsaday ee caado uu yahay dembigu waxa weeyaan dembigiisa wuxuu arkayaaba haba weynaadee duqsisanka ka fuulay dabeedna waxa weeyaan gacanta saa ku iska dowliyay idan qofka muuminka qofku markuu toobad keeno waxa weeyaan shuruudaha toobada waxa kamid inuu ka murugoodo marka la xasuusiyo marka uu xasuusto marka lagu soo qaado inuu raahdo waxa weeyaan ka murugoodo hadduu ka murugoo waayo ka war hadduu faafinaya ka war
hadduu isagiiba daaci ku yahay ka war hadduu ku faanayo ka war hebel iyo hebel baanu hayno dariiqaasaanu marray maanta taasi waa badan tahay dadka dhexdeeda mujtamaca dhexdiisa qofku dembigii uu sameeyey inuu haddana sii faafiyo waa ku badan tahay xadiiska saxiixaynka ku jira nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin dembiga waa laga dhaafaya ummaddeeda o dhan waa laga dhaafaya mujaahiriinta mooyaane markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam mujaahirka waxuu ku sheegay inuu yahay qof xumaan sameeyey ilaahayna subxaana wa tacaala asturay dabeedna isagoo subaxii bilaabay inuu ka warramo yaa fulaan camiltu albaarixata kada wa kada hebelow saa iyo saasaan sameeyey kaa noocaa laga dhaafi maayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shuruudaha toobadda waxaa ka mid ah wakhtiganuu qofku toobad keenayaa inay tahay wakhti aanay toobadda ka xidhmin oo toobaddu guud ahaan ummadda wakhti bay ka xidhmaysaa waa marka ay qorraxda halkaa imika ka soo jeeda ay ka baxdo halkii waxa weeyaan ay ka dhacday ay ka soo noqoto qofkana waxay gaar uga xidhmaysaa marka ay naftu xawlalmariidka iyo xulquumka ku soo ururto ee halkaa dhuunta marka ay ka qirriclayso in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir waa kii lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala addoonka dembiga waa ka dhaafayaa inta aanay naftu xawlalmariidka aanay markaa xawiyaan aanay ku soo ururin halkaa markay ku soo ururto hadduu dhahdo waan toobad keenaya dee taa markaa lagama aqbalayo xataa idaa jaa'a axadahum almowt qaala rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fiima tarakt kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluha waa ka ilaahay qur-aanka kaga warramay mid markaa waxa weeyaan markay naftu ku soo qabatay ee waxa weeyaan geeridii ku soo xaadirtay rabbi bari markaa bilaabay ilaahow dib ii dhig ilaahow xubaantii baan ka tegi wanaag baan soo samayn daacadii baan la iman waa kelmadu iska yidhi baa rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala idan walaalayaal bishan rabadaan ee ilaahay subxaana wa tacala ina soo gaadhsiiyey ee aynu xasuusan karno maanta dad badan oo walaaladeena oo sanadkii hore waxa weeyaan inala soomay oo rabadaanta markaa waxa weeyaan inala joogay oo masaajidada inagula tukanayay maanta inaanay inala joogin oo fursaddan markaa waxa weeyaan ay ka xidhantay oo waxa weeyaan haddii aynu maanta dhulka dushiisa iyo carrada guudkeeda taltallaabsanayno maanta markaa ciidda ay ka hooseeyaan ay sugayaan suurtii in la afuufo qiyaamihii markaa waxa weeyaan dhaco oo waxa weeyaan ciidda ay ka hooseeyaan fursadda aan ka faa'iidaysanno aan uga faa'iidaysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu u soo noqonno oo markaa waxa weeyaan aynu u toobad keenno walaalayaal qof kastoo inaga mid waa gafaya nabigeenni moxamed aha calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari ku jira saxiixiisa min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi waa dhaaranayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wallaahi innii la astakfiru llaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi akthara min 70 mara ilaahay baan ku dhaartee 70 jeer in ka badan ayaan alla subxaana wa tacaala u noqdaa oo rabbi subxaana wa tacaala u toobad keena waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo dembigiisii hore iyo kiisii dambaba la dhaafay innagoo waxa weeyaan maanta aynu ognahay walaalahay xaalkeenu halkuu marayo intee baynu isxasuusannaa intee baynu dembi dhaaf ilaahay weydiisannaa intee baynu ilaahay u soo noqonnaa waxa inala gudboon markaa inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo noqonno oo bisha rabadaan aynu uga faa'iidaysanno nafta inaynu toobad ku maydhno iyo camal wanaagsan ilaahayna subxaana wa tacaala waa jecel yahay dadka u toobad keena dadka naftooda nadiifinaya ee ku nadiifinaya toobad iyo camal wanaagsan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u jecel yahay dadka caynkaas iyo sifadaa leh ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin alle wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala waxa uu jecel yahay kuwa taa'ibiinta ilaahay u soo noqonaya tabaaraka wa tacaala isnadiifinaya naftooda toobad iyo camal wanaagsan ku nadiifinaya dahaaro qaadanaya nijaasta lafteeda markaa iska nadiifinaya walaalayaal hadduu qofku toobad keeni waayo ilahay waxba muu yeelin waman lam yatub fa ulaa'ika hum aldaalimuun hadduu toobad keeni waayo imaa wa imaa ama qofkii waa taa'ib oo kuwa guulaystu ka mid noqonaya ama waxa weeyaan mid toobad keeni waayo daalimiintu ku jira waman lam yatub fa ulaa'ika hum aldaalimuun kaan toobad keenin rabbi subxaana wa tacala wuxuu waa daalim toobadaasaa ilahay nala doonaya wallahu yuriidu an yatuuba calaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ربي سبحانه وتعالى وحنا لربا إننا صون نقرنا إننا أتوبت كنا يدو توبتني عمل كنا وناكسني إلهي سبحانه وتعالى أنا وحبا أترينين إن لقى دنت إنك كشرتا فإن يتوبوا يكون خيرا لهم هذا توبت كنا تاسايدين في عنبر ربي تبارك وتعالى عمل كوناكسني نصبيرينه توبدا استقامدا توسنانتا طاعدا إلهي وحبا أتري تبارك وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هذا وناك سميسان نفتينا وناك سميسان
haddii gafiya xumaanaad la timaadaana naftiina u taallaayo dembiga ka yimaada adduun iyo aakhiro ciqaabka ka ratibma idinka ayuu dhintay idin yahay aakhiro adduunyadana idinku saaran يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا حديثك حديث قدسك رسولك عليه الصلاة والسلام رب تبارك وتعالى كوري الله سبحانه وتعالى أدومها يجيو كويني هوريا كوا ما أنت تشوغا هدي لا سكي وددرو oo jinkana la idinku daro oo ka idinku qalbiga fiican aan noqotaan mulkigayga waxa loo xaku siyaadin kartaan ma jirtaba alla li tabaaraka wa taala hadaad noqotaan ka idinku qalbiga xunna oo aad noqotaan cusaad ilaahay subhanahu wa taala mulkigiisa waxa ka nuqsaamin kartaan ma jirto ilaahay subhanahu wa taala inaga wanaag weyn la rabaa badbaada ilaahay subhanahu wa taala la doonaya toosnaan iyo istiqaama ilaahay tabaaraka wa taala la rabaa نحريستيسا إننا كقوليسنا إلهي سبحانه وتعالى لا دونية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم دار السلام دار تبدبادة إلهي نوغو باقية وإلهي نوغو يريا تبارك وتعالى دار تبدبادة واتشنا دوي ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم كفر إيا قالمو إيا معسية إيا حمان إيا ألا كودمو لا حشو إلهي رالي نقلمها تبارك وتعالى إذا وحن يلقد بالمركة ولا ليال فرصة قيمها بدن بشر رمضان إن الله سبحانه وتعالى توبت كان رق إيا الضمر مال قبين إيا فقره مدح إيا شعب وقف كستو إنغا مده إلهي سبحانه وتعالى أينون نقنه إلهي تبارك وتعالى أينون توبت كانه فرصة داسي أينو كفا إيديسانو بشر رمضان أينو كفا إيديسانو نفتينا إنو توبت مركا وحويان أينو كميرنو waxaan jecelahay inta aynan ku soo gunaado oo ku soo gaabiyo wala mahadsantihiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh